ilmaha jira 6 bilood iyo wixii ka weyn ee aan seexan hurdo xasiloon waxay tahay sababta keenaysa arrintan. Dhowrkan qodob ayaa keenaya. Qodobka koowaad inuusan ilmaha seexan karin kaligiis. Qodobka labaad in ilmaha si isdaba joog loo nuujiyo xilliga dambe ee habeenkii waxay ku keentaa inuusan seexan hurdo fiican ama aan xasiloonayn. Qodobka saddexaad in ilmaha xilli hore uu hurdada ka kaco oo uusan ku laaban. Arrinta afraad ee u dambeysa ilmu soo baxaya inuu la xanuunsan yahay oo uu la seexan laayahay. Qodobka koowaad haddii aan ka hadalno inuusan ilmaha seexan karin kaligiis ku dhawaad dhowr jeer ayuu toosaa qof kasta habeenkii. Carruurta iyo dadka waaweynba inaad seexato hurdo fiican waxay ku xiran tahay inaad taqaan inaad kaligaa seexan karto. Ilmaha yaryarka waxay u baahan yihiin inay bartaan sidii ay kaligood u seexan lahaayeen. Haddii ilmahaaga jira 6 bilood inaad caano siiso ama ruxruxdo intuu ka seexanayo waxaad u baahan tahay inaad barto inuu kaligii seexdo adigoo aanan ku seexinaynin caano ama ruxruxayn. Haddaba u bilow inaad waqti iyo jadwal hurdo u sameyso. Haddii ilmahaaga hurdadiisa ku xiran tahay inaad caano siiso nuuji 30 daqiiqo ka hor waqtigaad seexin lahayd. Markuu ilmahaagu seexdo balse uusan gam'in jiifi sariirtiisa ama meeshaad seexin lahayd. Qodobka labaad in ilmaha si isdaba joog loo nuujiyo xilliga dambe waxay ku keentaa inuusan seexan hurdo fiican ama aan xasiloonayn. Badanaa ilmaha jira 6 bilood ma fiicna in habeenkii waqtigiisa dambe in badan la nuujiyo. Haddaba haddii ilmahaagu uusan seexan asagoon caano la siin ama loo ruxruxin wuxuu kici doonaa marar badan mana seexanayo ilaa aad u seexisid sidii aad u seexin jirtay. Ilmaha wuxuu fahmay oo inta badan in loogu imaanayo ama loo soo kacayo oo la siinayo caano lana ruxruxayo uuna la qabsaday arrintaas. Haddaba hubi in uu qaatay caano ku filan xilliga hurdadiisa ka hor 30 daqiiqo. Markaad seexisay 2 ilaa 3 saac kadib sii caano si uu u hurdo waqti dheer. Qolka ilmaha jiifa ka dhig mid iftiinkiisa yar yahay oo aan shanqar lahayn. Labada qodob ee haray waxaan kaga hadli doonaa fiidiyowga dambe.